salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula wacano wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada kaalmooy miidiya iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey xisad culus oo ka taagan duleedka magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag kadib markii halkaasi ay gaareen ciidamo shalay gelinkii dambe ka baxay deegaanada shidan iyo waqadariya kuwaasoo doonaya inay weerar ku qaadaan magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag bulshada gobolka sanaag gaar ahaan dadka ku nool magaalada ceerigaabo ay soo wajahday cabsi aad u xoogan iyagoo ka cabsi qaba in ciidanka difaaca deegaanka beesha warsangeli ay weerar ku qaadaan gudaha magaalada ceerigaabo waxaan kula wadaagi doonaa xiisada halkaasi ka taagan dhaqdhaqaaqyada soconaya iyo sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo dhankooda sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka weerarka lagu soo qabanayo magaalada ceerigaabo sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa ciidamadii daacadda u ahaa cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka magaalada baydhabo ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in saacadaha soo socda ay weerar ku qaadi doonaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay islamarkaana ay si buuxda ula wareegi doonaan gacan ku haynta magaalada sidoo kale maamulka galmudug ayaa war xasaasi ah ka soo saaray qorshaha dowladda federaalk Soomaaliya ee ku aadan arrimaha doorashooyinka ee galmudug qorqor go'aan culus ayuu qaatay muxuu yahay go'aanka faahfaahinta ayaan kugula wadaagi doonaa soo dhawow muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo ciidamada difaaca deegaanka ee duulaanka ku ah magaalada ceerigaabo ma la wareegi doonaan oo Somaliland ma ka saari doonaan mise waxa ay Somaliland difaacan doontaa si haysashada magaalada ceerigaabo aragtidaada qaybta faallada ee commentiga nagula wadaag sidaad u aragto wahagaag sidaan warbixinteennu hore idinkula wadaagnayba shalay gelinkii dambe deegaanada shidan waqadariye iyo sidoo kale yubbe waxaa ka baxay ciidamadii ugu badnaa ee difaaca deegaanka oo bilooyinkii ugu dambeeyeba halkaasi lagu ururinayay kuwaasoo loo diyaarinayay inay gacanta ku soo dhigaan magaala madaxda gobolka sanaag ee ceerigaabo oo horey dagaallo kala duwan ay ugu dhaceen oo u dhexeeyey ciidamada Somaliland iyo bulshada deegaanka taasoo keentay ugu dambeyn in Somaliland ay ku awood roonaato gacan ku haynta magaalada inta badan bulshadii ku nooleed ee ka soo jeeday bilaha hartina laga barakiciyay magaalada iyaga oo guryahoodii iyo hantidoodii la bililiqaystay cara xoogan oo ka dhalatay go'aankaasi tallaabada ciidamada Somaliland iyo maamulkaba ay qaadeen waxa ay keentay in deegaanada shidan iyo waqadariye muddo bilooyin ah lagu aruuriyo isla markaana lagu diyaariyo ciidamo loogu magac daray ciidanka difaaca deegaanka kuwaasoo ugu dambeyn shalay gelinkii dambe ka baxay deegaan xebeedka waqadariye iyo sidoo kale deegaanka hodanka ku ah macdanta iyo dahabka ee shidan waxaana ay gaareen meel qiyaastii 10 kilomitir u jirta magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag oo xalay ay ku weydeen warar hadda soo baxayana waxa ay sheegayaan in ay bilaabeen ciidamadan dhaqdhaqaaqyo culus iyagoona ku sii socdo dhinaca magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag wararka aynu ka helayno gudaha magaalada ceerigaabo ayaa sheegaya in ciidamada Somaliland ee halkaasi ku sugnaa dhankooda ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay doonayaan inay kaga hortagaan qorshaha ciidamada duulaanka ku ah magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag xiriir aynu la sameeyay dadka deegaanka waxay sheegeen inay arkayaan ciidamada difaaca deegaanka oo duleedka magaalada ceerigaabo dhaqdhaqaaqyo ka wada sidoo kalena ciidamada Somaliland ayaa dhankooda dhaqdhaqaaq aad u xoogan bilaabay iyaga oo markaasi hubkii ugu badnaa ee gudaha magaalada ku jiray ula baxay dhinaca magaalada banaankeeda gaar ahaan dhinaca ay ka soo socdaan ciidanka difaaca deegaanka ciidamada difaaca deegaanka ee duulaanka ku ah magaalada ceerigaabo ayaa la sheegay inay yihiin ciidamo aad u fara badan isla markaana wata gaadiid dagaal oo fara badan iyo hub aad u culus waxaana la sheegay in ciidamadan ay doonayaan weerarka ay ku qaadayaan magaalada ceerigaabo inuu noqdo midkii ay ku soo afjari lahaayeen joogitaanka Somaliland ee guud ahaan gobolka sanaag iyo sidoo kale magaala madaxda gobolkaasi ee ceerigaabo ciidanka difaaca deegaanka oo inta badan markaasi ka soo jeeda heebaha beesha warsangeli ayaa la sheegay inay isku dhaarsadeen sidii ay Somaliland ugu saari lahaayeen deegaanadaasi muddo dheer oo abaabul iyo diyaar garow aad u xoogan ay ku jireenna ugu dambeyn markaasi ay qorsheeyeen in shalay ay markaasi u guuraan dhinaca duleedka magaalada ceerigaabo saakana halkaasi ay dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan ay ka bilaabeen kadib markii ciidanka difaaca deegaanka ay bilaabeen dhaqdhaqaaqan iyo howlgalkan waxaa markiiba dhankooda sheegay inay door weyn ka qaadanayaan qaybna ku noqonayaan howlgalka lagu soo qabanayo ceerigaabo saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya kuwaasoo ku sugan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka sanaag gaar ahaan ciidamadii ku sugnaa degmada Xingolool iyo saraakiisha waqooyi bari ayaa sheegay inay dhankooda heegan u yihiin
una diyaarsan yihiin ka qaybgalka howlgalka lagu soo qabanayo magaala madaxda gobolka Sanaag ee Cerigab. Waxay u muuqataa in xaaladda gobolka Sanaag markan ay cirka isku sii shareereys iyadoo dhinacyadii halkaasi ku loolamay mid kasta oo ka mid ah uu doonayo meelmarinta qorshihiisa ku aad gudahaan wixii ka soo kordha xiisadda gobolka Sanaag iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ka soconaya gudaha iyo bannaanka magaalada Cerigab. wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee helo wararkii warbixinada aynu halkan ku baahino. nagu soo biir oo ka mid noqo daawadayaasha ku xiran Kaalmoy Media ee mar kasta hela wararka iyo warbixinada aynu halkan ku baahino. waa hagaag markana dhinacaas iyo koonfur galbeed Soomaaliya. ciidamadii daacaddu ahaa hogaamiyihii hore ee koonfur galbeed Soomaaliya welise sheeganaya inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo maalmihii ugu dambeeyay abaabul iyo dhaqdhaqaaqyo xooggan ka wada duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, isla markaana habeenno ka hor dagaal halkaasi kula galay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalinnimadii shalay ahayd waxay ku dhawaaqeen inay diyaar u yihiin qaadista howlgalkii ugu dambeeyay ee magaalada Baydhabo ay kaga saari lahaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. ciidamo markaasi aad u fara badan oo markaa ku sugan goob barxadda una u qudbeynayay afhayeenka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay isla markaana uu ciidamada hortooda ka sheegay in loo diyaar garoobo howlgalka madambeysa oo cadowga iyo sidoo kale mooryaanta ku soo duushay koonfur galbeed looga saarayo sida uu markaasi hadalka u dhigay. afhayeenka oo wejigiisa laga dheehan karay cara iyo sidoo kale inuu markaasi aad uga xun yahay in lagala wareegay talada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya si xoogana looga tuuray. waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin howlgal ballaaran oo ay doonayaan in Baydhabo iyo guud ahaanba koonfur galbeed Soomaaliya ay kaga xoreeyaan mooryaanta uu soo diray Xasan Sheekh Maxamuud sida markaasi uu hadalka u dhigay. waxa uu sheegay in madaxweynihii muddo xileedkiisu uu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud uusan haysanin sharciyad uu ku sii maamulo dalka, isla markaana koonfur galbeed loo baahan yahay in lagu soo celiyo dowladdii sharciga ahayd iyo nidaamkii kala dambeynta ee cadaaladda ku dhisna. waa sida uu sheegay. waxa uu yidhi ciidamadeena geesiyaasha maalmihii ugu dambeeyey waxa ay ku jireen abaabul iyo diyaar garowgii ugu dambeeyey, waxaana hadda qaadi doonnaa howlgal ballaaran oo ka dhana mooryaanta ku sugan magaalada Baydhabo ee Xasan Sheekh Maxamuud uu halkaasi u soo diray. sidoo kale wasiirka amniga koonfur galbeed oo ciidamadan la hadlayay waxa uu dhankiisa sheegay in maalmaha soo aadan guud ahaan bulshada koonfur galbeed dhegahooda ay maqli doonaan war farxad leh oo u wanaagsan, kaasi oo ah inay ka xoroobeen duulaankii iyo sidoo kale faragelintii ku dhisneed gumaysiga ee markaasi loo soo waariday Muqdishona markaasi looga soo diray. waxa uu yidhi waxaan u baaqaynaa walaalaheena kale in la safan garabka cadowga inay ka soo baxaan isla markaana ay dowladooda iyo dadkooda dhinac ka raacaan. koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wajahaysa xiisado siyaasadeed iyo sidoo kale kuwa militari oo iska soo horjeeda isla markaana u muuqda in marba marka ka dambaysa ay cirka isku sii shareereys. dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay duleedka Baydhabo ee dhexmaray ciidamada daacaddu ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay galaafteen nolosha askar badan iyo saraakiil muhiim u ahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo ku baxay iska horimaadka ciidamada Laftagareen daacaddu ay sidoo kale kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. weli xaaladdu ay kacsan tahay duleedka Baydhabona waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo ay wadaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen daacaddu ah oo maalmihii ugu dambeeyay soo bandhigayay ciidamo kale oo ka soo goostay dhinaca maamulka ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed, isla markaana sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka halganka dib loogu soo celinayo sharciyadda. guud ahaanba koonfur galbeed wixii ka soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa. muuqaalka like saar, aragtidaadana qaybta faallada ee commentiga ku dhiiba. waa hagaag markana dhinacaas iyo Galmudug. maamulka Galmudug oo muddooyinkii ugu dambeeyey wajahayay khilaafaad iyo sidoo kale mowjado siyaasadeed oo kaga imaanaya dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wararka soo baxaya waxay sheegayaan in hogaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu qaatay go'aan culus oo ka dhana hannaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay wax uga wado deegaanada Galmudug ee ku aadan arrimaha doorashooyinka. madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo 4 sane aynu ka soo gudubnay si toos ah ula shaqeynayay dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa la soo warinayaa in markan isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo kala dhaxgalay khilaaf aad u xoogan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa ayaa la sheegay in ay markaasi Galmudug u diyaarinayaan ama ay markaasi go'aanba ku gaareen
inay u dhisaan musharax kale oo aan ahayn Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo 4 sano ee la soo dhaafay isagu ahaa markaasi shakhsiga ay filo Soomaaliya u sheegaysay inuu yahay musharaxa xisbiga JSB ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Galmudug markaasi uga tartamaya. laakiin maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay isbeddel weyn oo ku yimid dhammaan hanaankii ay wax ku socdeen ee Qorqor iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud. xisbiga JSB ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo ayaa lagu soo waramaya inay isla qaateen in musharaxooda Galmudug ay ka dhigtaan Liibaan Shuluq, taas oo markaasi warar hoose oo soo baxaya ay sheegayeen in la go'aamiyey in Qorqor gabi ahaanba lagala noqdo kaarka musharaxnimo ee xisbiga JSB ee dowlad goboleedka Galmudug. Tallaabadan ayaa waxaa markaasi ay keentay in madaxweynaha Galmudug uu qaado go'aano waaweyn isla markaana ay ka mid yihiin in gabi ahaanba uu degniin u diro xubnaha ka soo horjeeda maamulkiisa ee dhinaca filo Soomaaliya ee abaabulka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ka wada Galmudug. Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa la soo warinayaa in uu wado qorshayaal xasaasi ah oo ku aadan ku dhawaaqista guddi doorasho oo markaasi Galmudug ka qabanaya doorasho madaxweyne iyo sidoo kale mid baarlamaan iyo mid gudoomiyaha baarlamaanka. Tallaabadan ayaa dad badan ku tilmaameen inay la mid tahay midii uu lafta gareen horay u qaaday, isla markaana suuragal ka dhigaysa in Axmed Cabdi Kaariye Qorqor sidii lafta gareen oo kale meesha looga saaro. laakiin dad badan waxa ay qabaan in Qorqor uu lafta gareen la mid ahayn, isagoo haysto taageero weyn oo dhinaca siyaasiyiin markaasi rugcadda ah iyo saraakiil muhiim ah oo Galmudug ka soo jeeda. waxaana dad badan ay qabaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo muddaxileedkiisa uu dhammaaday aysan u sahlanaan doonin sidii lafta gareen oo kale in Qorqorna uu meesha kaga saaro. guud ahaan wixii ka soo kordha Galmudug iyo sidoo kale xaaladaha ka taagan Koonfur Galbeed ilaa iyo gobolka Sanaag xiisada dagaal ee ka soo kordhay wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa. muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga nagula wadaag. haddii aad hore nala joogtood ku mahadsantahay, haddii aad nala jooginna nagu soo biiro calaamadda subscribe-ka noo taabo, muuqaalkana sii sheer gare.